waxaan rabaa inaan marka hore wax yar oo hordhaca ka bixiyo marxaladihii aan soo marnay. waxaan rabaa inaan sheego weliba inaan qaban doono shir ama kulan aan kaga hadli doono si faahfaahsan marxaladihii waddanku uu soo maray, gaar ahaan Jubbaland iyo xaaladeedu halka ay soo martay doorashadii ka hor iyo kadib. laakiin waxaan tan rabaa inaan maanta ku soo koobo marxaladda taagan iyo sida ay ahayd. waxaanu isugu nimid samareeb laba, madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir. waxa aan kaga hadalnay waxay ahayd in xal laga gaaro gobolka Gedo, guddi loo saaro. guddidaasi inta aan samareeb saddex la isugu soo noqonin ay iyagu ka soo tala bixiyaan xalla laga gaaro, iyadoo markaa dowladdu ay ka shaqaynaysay ciidamo lagu daldalayo, colaysyo badan oo la gaarsiinayo dadka iyo dhibaato dadka la dhex dhigayo. muuqatayna inta ka horeysa shirka dambe intaanaan isugu imanin in tallaabo la qaado. arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kaleba ama ka wada hadalay. ma ayna dhicin samareeb tiri maanaan imanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay. wax tallaabo arrintaa laga qaado mayna jirin. sebtembar imaatinkii aanu nimid muqdisho, waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka Gedo. maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda ciddii aan ka arkayba waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo, xaaladda ka socota gobolka Gedana aanan mas-uuliyaddeeda qaadi karin. doodeer ka bacdi waxaa ii soo baxday shirkaa inaan ka baaqlaayay inay caqabad ku tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed. waxay noqotay inaan u tanaasulno oo aan oggolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka Soomaaliya. inta shirkaasi uu socdana midda kale ee dhibaatada gudahayneed markaan tirsanaynay ee Jubbaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqayno. inta ay maqnaayeen madaxdii kale, aniga iyo madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo waanu kulannay. waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqayno guddi saaro la soo ururiyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka Gedo. madaxweynuhu ninkuu soo magacaabay ahaa taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin, alla nin xildhibaana baan ku soo daray. waxaan ku nidhi tala noo soo jeediya oo waxaad keentaa Geelo Jamac Mursal iyo Fahad Yaasiin tala ku eg xaaladdan wixii hadda laga qaban karay. waxay soo jeediyeen in la qabto guddi wadajir ah. guddidaasi inay soo jeediyaan xal sidii looga gaari lahaa arrinta gobolka Gedo, maamulkii sidii wax loogu qaban lahaa, sidii dhibaatada taagan xalkeeda loo gaari lahaa. dowladda federaalka iyo Jubbaland waxay isku haysay gobolka ku saabsan loo sameyn oo guddidaas ay uga howlgeli lahayd muddo koobanna loo cayimi lahaa inay arrintaas ku dhammaato. waxba mayna ka dhicin. madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay. shaqadii aan isku ogeyn oo dhan dhinaca kale u rogay, isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalbeynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay, oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta Jubbaland iska daaya waxa caqabada Gedo ma ahayn Kismaayo ka jirta, isagoo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceeb ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo Kismaayo iyo hogaamiye kooxeed iyo waxaana la isku hayaa iyo waxaana la isku hayaayo aanan igula hadlin. cod madaxweyne uu ka hadlayay wax si jufannimo ah ku saabsan. taas waxay soo gaarsiisay inaan shirkii idhaahdo haddaba kama qayb gelayo. saaxiibaday markaa markii hore madaxweynaha Puntland baa nagula jiray heshiisiinta iyo negotiationka aniga madaxweynaha naga dhexeeyey. madaxweyne qoorqoor, Cabdicasiis, Waare iyo Cumar Finish yaa waxay qaateen markaa weliba saddexda madaxweyneha kale ah. intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socda waxaa rabnaa
inaad shirkana nala dhamayso hawshana aad nala qaadato kabacdi annagu aanu gallo waxaan kuli iga daayay arrintaasi way adag tahay ninkaana nin u socdo ma ah waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhammayn karayo aan u dhammaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadiina aan go-aankeedii 17 September sidaa ku gaadhay intaasi markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qaybta hadalkii aan ka hadlayay madaxweynuhu stateka dhexdiisa u taallaa siduu u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo ugu qaybinaynaa deysi maya buulo 2016 waa la qaybiyey idinku kaana hadda soo yeedhi waa sheegna waa dhamay waxay noqotay in nooc loo kala saaro gobolka oo qabaylada qaarkood oo labada meelood badegaya la yidhahdo hal meel bay wada degaana madaxweynuhu isagoo dan kale markaas uu riixidhaa kale saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helina nin walba ugu dhoofay ilaa waa heshiiskii waa la gaaraa maalintii aan tegay Kismaayo 3 maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee dowlad goboleed furitaankii shirkaan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taasay ahayd wax ku saabsan waan ka hadlay waxaan halka u arkayey sida waxu jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu wadaa ku tagrifalkeedii riixideeda waana la ogaa waana hadal duuban oo yaallo ah maana ka helin wax jawaaba waxaa nagu soo noqday ma jiro halkaa iyadoo taagan tahay waxaanu muddo 4 bilooda ku baaqaynay iyadoo markaa 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadlayay doodoodu soo noqotay oo ka mid ahayd guddiyadii la soo saaray oo laga cabanayay musharaxiintu ay ka cabanayeen oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugid iyo shaqaalo dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta Somaliland iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka gado oo markaa ciidana lagu daabulayo caqabadana ay jirtay waxaan marar badan beesha caalamkana u gudbinay dowladda Soomaaliyeedna kala hadalay waxa aan ka hadlaynaa waa ummad iyo masiirkeeda shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlay intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo 2016 waxaa jiray bilaha qaarkood oo hal bil shirar la isugu imanaya 2 goor si xal looga gaaro mas'ale yar oo markaa soo baxday khilaafkan saddexdan arrin oo gobolka gadatiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xirayo dhibaato la abuurayo